السلام عليكم. muuqaalkeennan qaybtiisii hore waxaanu si kooban ugaga soo hadalnay taariikh nololeedkii maxamed ilfaatix arkii islaamka iyo libaaxii u dhabeeyey malaayiin islaam ahi rajadii ay lahaayeen in ka badan 8 qarni. muuqaalkeenna kana ahee aadka u xiisaha badanna waxaanu si tafatin ugaga hadli doonaa dagaalkii baana ee muslimiintu la galeen dowladdii bisantiyiinta ee kiristanka ahayd si ay ugu furtaan magaalada istanbul. dagaalkan faraha lagaga gubtay oo socon doona muddo bilyo bil ah oo labada dowladood ee dagaalkani ka dhaxeeyay aanay waxba isku reeban ayuu hadda gudagali doonaya inta aynan muuqaalka furin. fadlan la garee videoga kuna soo biir adigeedani kugu jirta ee kanaalkeena adigoo subscribe taabanaya gambalelkana furo si uu ku soo gaaro muuqaal waliba kolkaanu sidaa u soo gelina. mahadsanid aanu bilowna videoga. soo dhawaada mar labaad. magaalada alqustantiniya ama istanbul shamaantu waa magaalo ay tiraba muslimiintu goodoomiyeen 11 goor oo laga soo bilaabo 44 hijriyada oo Allah ka raali noqday Muawiya ibn Abi Sufyan amiirkii muslimiinta ahaa ilaa laga soo gaaray Maxamed al-Faatix iyo sanadii 857 hijriyada. magaalada tan ahi inay sidaa oo dhan u adkaato waxyaabaha ugu waaweyn ee sababay waxaa ka mid ahaa goobta istiraatiijiga ah ee magaalada tani ku taal. magaalada tani waxay ahayd mid dhacda goob jasiiradu ee ka ah oo 4 jiro 3 ka mid ah biyo ka xigeen. dhinac waxay kaga taalay badda marmara, dhinacna biyo mareenka geeska dahabiga ah, dhanka saddexaadna waxaa ka xigay biyo mareenka Bosfor. ku darso 4 jihaba waxaa kaga wareegsanaa deerar aad u dheer xataa dhinacyada biyuhu ka xiga. dhanka galbeed ee magaalada ayaa ahaa dhanka kaliya ee beriga ah waxaana dhinacaas kaga wareegsanaa deer weyn oo dherarkiisu yahay 7 kilomitir iyo badh. ku darso oo hal deer oo kaliya muu ahayn ee 3 deer oo kala dambeeya ayaa ku teedsanaa. deerarka waaweyn intaanad gaadhinbana waxaa ka sii horeeyay god weyn oo balliciisu yahay 20 mitir hoosna u qodnaa 10 mitir oo biyo ka buuxa. sida kaliya lagaga soo gudbi karaana waxa ahayd in la soo maro dhowr bridge oo iyana markay khatari jirto la dalici jiro. xagga biyaha haddii aad istaarhada ka soo galna 3 dhinac 2 dhinac oo ka mid ah waxaa ku wareegsanaa deer dherarkiisu dhan yahay 8.4 kilomitir. dhinaca kale ee ku beegan biyo mareenka geeska dahabiga ahna silsilad weyn baa ku xidhnayd oo marnaba suurtagal may ahayn in biyo mareenka gudaha loo galo. haddii xataa la go'doomiyo waxay ahayd magaaladan mid biyo ileedkeeda si weyn loogu ilaaliyay iyada oo webi dhani hoos mari jiray magaalada hoosteeda. webigaas bisantiyiintu waxay u sameeyeen saqaf ay ku qariyeen. saqafkaas oo keenay inaanay haba yaraatee wax xoga laga helin ishan biyo ah ee magaalada hoos qulqulaysa. il biyood labaad baa iyana jirtay oo ahayd beebab waaweyn oo masaafo 100 kilomitir ah biyaha uga keeni jiray magaalada. beebabkan oo taxnaa ilaa buuraleyda Bulgaariya. hadda waxaad ila garateen sababta magaalada tan ah loogu magacaabay magaalada ugu dhufayska adkay taariikhda iyo sababta keentay in furashadeeda sidan oo dhan loogu guuldaraysto intaas oo jeer ee aynu dagaalkii iyo diyaargarowgiisii u gudagalno. diyaargarowgii hore ee dagaalka maxamed ilfaatix waxa uu heshiisay nabadeed la galay dowladihii ku hareeraysta si uu awoodiisa isugu geeyo duulaanka qustantiniya iyo furashada istanbul. muddo sanad ah ayaa uu boqorku diyaargarow ku jiray isagoo ururiyay ciidamo tiro ahaan gaaraya 100,000 ilaa 150,000 oo askari. waxaana uu ku ubeeyay ciidankiisa waagaas hubkii adduunka ugu casrisanaa isagoo sanada ciidanka ku soo daray madfac uu sameeyay injineer u dhashay dalka Hungary. injineerkan oo magaciisa la oran jiray Orban ayaa hindisay madficii dunida ugu weynaa xilligaas. madfacan oo ridadiisu gaadhaysay in ka badan 1 mayl. maadaama ay istanbul ku taalay goob jasiiradu ee ka ah waxa uu aasaasay suldaan maxamed ilfaatix ciidamo badeed oo aad u xoogan oo ka qayb qaadanayay furashada magaalada kuna hubaysnaa dooye gaaraya 126 doonyood. istiyaargarintii muslimiintu kolkii ay gaadhay boqorkii bisantiyiinta ee Qustantiinkii 11 waxa uu isku dayay inuu joojiyo weerarkan la qorsheynayo in lagu soo qaado.
isagoo laaluushay qaar ka mid a la taliyayaashii maxamed ilfaatix si ay ugu qanciyaan joojinta weerarka kan ah. laakiin suldaanku ganafka ayaa uu ku dhuftay qorshihii nimankani ay lahaayeen. intaa kadib waxa uu garowsaday Qustandiinkii 11aad inay muslimiinta madaxa istageli doonaan, waxaanu u diyaar garoobay weerarka maxamed ilfaatix ku soo qaadi doono, isagoo magaalada albaabada u xidhay, ciidamadiisii hubeeyey, gurmad iyo kaalmana ka dalbaday dalalkii kale ee reer Yurub. maxamed ilfaatix waxa uu isna diray wadada u dhaxaysa adeerna oo ahayd caasimadii dowladda Cuthmaaniyiinta ee waagaas iyo magaalada Qustandiiniya ee uu duulaanka ku yahay ciidamo siixaad ah. kadib maxamed ilfaatix waxa uu dhaqaajiyay ciidankii muslimiinta dhanka iyo halkii duulaanka ku ahaayeen ee Istanbul. sidoo kalena waxa uu ciidamadii badda amar ku siiyay inay dhaqaaqaan. taariikhdu markay ahayd 15 abriil sanadii 1453 miilaadiga ayaa uu maxamed ilfaatix gaaray magaalada Qustandiiniya, isagoo ciidankii iyo guutooyinkii u nidaamiyay sida ay u dagaalgeli lahaayeen. ruumihii madaafiicdana waxa uu ku jeediyey dhanka iyo albaabadii waaweynaa ee Qustandiiniya. intaa kadib fariin ayaa uu maxamed ilfaatix u diray Qustandiinkii 11aad ee ka talinayay magaalada Qustandiiniya, isagoo ku yidhi magaalada si ammaan ay igu soo wareejiy waandhii ku daadan naftaada, ehelkaaga iyo maalkaagana ammaan buuxa ayaan kuu siinaya. Qustandiinse waa ku gacan sayra, waxaanu ballan ku galay ilaa inta ninka u dambeeya ka qurbaxaya inay dagaalami doonaan, difaaci doonaan magaaladooda. jawaabtaasi markii ay ka timid dhinaca iyo gaalada, maxamed ilfaatix waxa uu amray in madaafiicda lagu garaaco dhufaysadii iyo gidaaradii magaalada, iyadoo oo lala ama kaagay awoodda madficii suldaanka ee weynaa. duqayntu 2 toddobaad ayay ku socotay magaalada, laakiin dhufaysadii magaaladu may burburin. sababtuna waxay ahayd ciidamada Cuthmaaniyiintu marka ay nasiyeen madaafiicda si aanay u qarxin kulayl daraadii. Byzantine-tuna dib ayay u dhiseen meelihii burbursanaa, heer uu kolkii dambe qarxay madficii weynaa ee suldaanku. qaraxana waxaa ku geeriyooday injineerkii sameeyey oo ag taagnaa. taariikhdu markii ay marisay 18 abriil ayaa uu maxamed ilfaatix sameeyey isku dagiisii koobaad ee weerar lugta ah oo ku qaaday magaalada. weerarkanse muslimiintu waa ay ku jabeen, waxaana kaga qurbaxday in ka badan 200 oo askar. 20 abriil ayaa biyaha magaalada Qustandiiniya waxaa soo galay 4 dooniyood aad u waaweyn oo sanadii cunto u siday magaalada iyo ciidamada gaalada ah oo reer Yurub soo direen. maxamed ilfaatix waxa uu yeedhay abaanduulihii ciidamada badda ee muslimiinta Sulaymaan Balda Oglo, waxaana uu ku yidhi ama doonyaha ii keena maadigoo noolaha igu soo noqo. dagaal ba'an ayaa biyaha badda bartankooda ku dhex maray ciidamadii badda ee muslimiinta iyo 4 doonyood ee waaweynaa. doonyihii 4 ayaana ku adkaaday dagaalkii, waxaanay garin biyo mareenkii qarnu dahabi. si aanay doonyaha muslimiintu uga soo dabagelinna waxay dalaceen silsiladii aadka u waaweynaa. guuldaradan labaad ee dagaalka dhexdiisa muslimiinta soo gaadha oo ahayd dharbaaxa aad u xanuun badan, waxay xilkiisii ku waayay abaanduulihii ciidamadii badda ee muslimiinta. guuldarrada uu ciidamada muslimiinta soo gaadhsiiyey isagoo ka faa'iidaysanaya ayaa Qustandiinkii 11aad ee ka talinayay magaalada Istanbul waxa uu soo diray suldaan maxamed ilfaatix fariin uu ku leeyahay go'doominta ka qaad magaalada oo aynu heshiis galno. laakiin suldaanku gebi ahaanba waa uu ka diiday arrintaas, isagoo u sheegay inuu sii wadi doono go'doominta. bisha May 6 waxaa mar labaad dib loo hagaajiyey madficii suldaanka ee weynaa ee hore u qarxay, waxaana mar labaad lagu soo daray sanadii ciidanka ee dagaalka lagu galayay. 7 bishii May waxa uu suldaanku qaaday weerarkii labaad ee lugta ah. nasiib darrase laakiin muslimiintu waa ay guuldaraysteen, waxaana soo gaadhay guuldarro aad u xanuun badan, iyadoo maalintaas muslimiinta ay ka qurbaxeen 7,000 oo shahiid. 12 May ayaa haddana suldaanku weerar saddexaad oo lugta ah ku qaaday magaalada. nasiib darrase laakiin sidii maalintii hore muslimiinta waxaa ka qurbaxay 7,000 oo shahiid ee sare u dhaafsiisa. maxamed ilfaatix iyo abaanduuliyaashii ciidanka muslimiintu waxay badan isku dayeen bal inay raadiyaan tab iyo xeelad kale oo ay magaalada tana ku furtaan, iyadoo dagaalada aynu soo sheegnay ee uu isku dayay maxamed ilfaatix inuu weerar lugta ah ku galo ama ku qabsado magaalada ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo shahiid oo ciidamada muslimiinta ah. markii ay taariikhdu marisay 25 May ayaa haddana muslimiintu sameeyeen weerarkoodii afraad ee lugta ah, sidii kuwa horena waa ay ku guuldaraysteen. waxay muslimiintu dhabaradayagaan kuna sabraan dagaalka iyo shiddada ba'an,
kagana qurbaxaan in ka badan 30,000 oo askari oo ciidamada muslimiinta ka mid ah waxaa nasrigii guushii ee batimid 29 bishii May markaasoo ciidamadii muslimiintu galeen albaabada magaalada Qustandiniya dagaalka u dambeeyay waxa lagu dilay boqorkii haystay magaalada Qustandiniya 11 محمد الفاتح وحاو سوغلي مغالدا isagoo faras dhalada uga baxsan kaliya tadaadiisuna waxa ahayd 12 sano waad u jeedaan diinteena soo bandadaalka tacabka iyo dhiiga loo soo daadiyay si laynoo soo gaarsiiyo muuqaalkana waxaad uga jeedaan tacabka iyo dadaalka aadka u tirada badan leh galay kaliya waxaan ka codsanaynaa waxa weeyaan inaad videoga like garayso una sii share garayso asxaabtaada kuna soo birta kanaalka adigoo subscribe taabanaya muuqaalka ku xiga intaan isugu iman doono nabadeey oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kuwanina waa dagaal kale oo muslimiintu galeen oo aad u qaraadha runtii inaad ku raaxaysan doonto daawashadooda aqoon iyo xogaad u tiro badan aad ka dheefi doonto ee labadan muuqaalka doonaysa riix oo daawo